dadweynaha tuulada Fadhigaab oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada Garadag oo maanta isugu soo baxay goob fagaara ah ayaa waxay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxayna ugu duceeyeen in Ilaahay ku asturo xilkaasi loo igmaday sidoo kalena waxay shacabweynaha Soomaaliland kula dardaarmeen inay ilaaliyaan nabadgelyada dadweynahan oo ahaa kuwa jibaysan ayaa waxay halkaasi ku soo bandhigeen dabaaldeg iyo ciyaaraha bariyada waxaana ka hadlay maamulka tuulada Fadhigaab sida gudoomiyaha xusbiga kulmiye ee tuuladaasi iyo haydka magaalada Fadhigaab Axmed Ismaaciil Dukaal dhalinyaro haween odayaal iyo dadweyne kale waxaana hadaladoodii kamid ahaa gudoomiyaha xusbiga kulmiye tuulada Fadhigaab degmada Garadag salaamaya madaxweynaha hore ee wax qabadka badnaa waxa weeyaan Axmed Maxamuud Siiraayo iyo dawladdiisii Muuse Biixi madaxweynaha cusub ee mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha cusub iyo xusbiga kulmiye ee joogaba soo dhaweynaya Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha cusub ee Soomaaliland dhaxalka waxaan hambalyo u dirayaa oo soo dhaweynaya Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Ilaahay xilka ha ku fududeeyo Ilaahay kugu asturo dadweynaha Soomaaliland waxaan u sheegaynaa mucaarad iyo muxaafadba inay madaxweynahooda la shaqeeyaan waxa weeyaan madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici guul buu sidaa waxa laga doonayaa dulqaad waxa laga doonayaa xisbiyada kale inuu soo jiito maanta way dhamaadeen maanta Soomaaliland waxa madaxweynaha ku soo baxay Muuse Biixi Cabdi ku soo baxay waxa weeyaan maanta isagoon baa dadka wada madaxweynaha waxa laga doonayaa dulqaad baa laga rabaa halkan waa Fadhigaab waa meeshii mahmaha badan aan ka sii dhigay aan ugu abaal celinay codkay waxa weeyaan naqad qayb galay waa dad aad u fara badan waa dad qayb badan isku jira oo kala nooc oo cuddo kulmiye leh wadani leh dadku waa u leeyahay dad badan baa soo raacay ciidanka militariga ciidanka booliska sida amniga uga soo shaqeeyay magaalada Ilaahay ku guuray ka dhammaan malyaabaan u diraya waa magaranaysaa xusbiga kulmiye iyo magaranaysaa wadani iyo cid anaga isku dumanaa oo arkaan meesha wada jooga waxaan magaranaysaa dhammaan madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi aynu farxadda reer Soomaaliland oo dhan la qaybsanana qaranka Soomaaliland midna waa nabadgelyada waata nabadgelyada reer kulmiye inuu waa guuleysatay marka nabadgelyada reer kulmiye inay iska xil saaraan oo ilaaliyaan waa waajib nabadda Soomaaliland oo dhan waxaan farxadda iyo hambalyada aan la qaybsanayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kasta ay joogaan aan leeyahay hambalyo Muuse Biixi Cabdi baan hambalyo u dirayaa anagu ka hadalnaa waxaan leenahay xisbiga kulmiye walaahi Soomaaliya ku maamaada walaahi barta si loo aas hadii si aan ku raacaa guuleysatay nabadgelyadana ka shaqeeyo oo hadii wax idinku yimaadaan dee dulqaata loo soo doortay gudoomiyihii kaamilka gobolka Sanaag sida hufan ee hagarlida ugu shaqeeyay guud ahaanba gobolka Sanaag sida fiicnada uu nolol shaqeeyay isagana hambalyo leenahay sida hagarlida ee kartida leh aad uga soo shaqeysay gobolka Sanaag shaqadii lagu doortay lagu igmaday waad ka soo baxay baan leenahay xildhibaan Farxad Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garadag